Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka YouTube soo dhawaada. Qof waliba uu garaadkiisu sareeyo wuxuu garan karaa in caradu ay tahay dareen raadaynta ban ku yeesha habdhaqanka qofka. Cilmi ahaanna waxaa la xaqiijin carada ay dhaawac u geysto caafimaadka jirka iyo maskaxda. Balse barnaamijkeena maanta waxaa ku soo qaadan doonaa shan arrimood ay tahay in qofka aanu sameyn marka uu caroodo. Balse inteenaan u gudagelin barnaamijkeena maanta fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaaga noogu reeb qaybta kommentiga. Qodobka koowaad, kaxaynta gawaarida. Waxaa habboon inuu ka fogaado qofka markii uu caraysan yahay kaxaynta gawaarida. Daraasado kala duwan ayaa sheegaya in qofka caraysan uu kaxeeyo gawaarida si cadaawad ka muuqato. Qodobka labaad, caadooyinkii xumaa ee aad hore u joojisay. Waxaa la xaqiijiyay in caradu ay jebiso go'aanada adag ee qofka, isla markaana uu si dhaqsiya u noqdo caadooyinkii uu hore iskaga daayay. Qodobka saddexaad, dad la macaamilka. Waa hubaal in caradu ay xumeyso dabeecadda iyo habdhaqanka qofka. Sidaa awgeed waxaa habboon in qofka uu xasuusto go'aamadiisii adkaa iyo xakameynta naftiisa, iskuna day inaad ka yara fogaato dadka, isla markaana aad ku dadaasho inaad dejiso xaaladaada nafsi ahaaneed. Qodobka afraad, go'aan qaadashada. Waxay culimmada cilmi nafsiga kula taliyaan dadka inaysan qaadan go'aan markii ay caraysan yihiin. Taa cagsigeedana, haddii aad go'aan qaadatid adigoo caraysan, waxaa suurtagal ah hal go'aan oo qaldan aad qaadatay inuu mugdi geliyo mustaqbalkaaga. Qodobka shanaad, baraha bulshada ee internetka. Xiliyadan dambe ee isticmaalka baraha bulshada soo bateen, waxaa soo baxay caado ah in qofka carooda, gaar ahaan dhalinyarada, in dareenkooda ay ku cabiraan barta ay baraha bulshada ku leeyihiin sida Instagram, Facebook iyo Twitter. Balse waxaa la xaqiijiyay intaasi ay tahay tallaabo aad u xun. Sidaa awgeed waxaa aad muhiim u ah marka uu qofka caroodo uu isla markaaba nafta xasuusiyo go'aamadii ay hore u qaadatay. Waxay khubarada cilmi nafsiga kula taliyaan dadka markuu caroodo inuu sameeyo jimicsi. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Haddii uu ku anfacay, like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.